بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد كلب كاير وحنا ugu talagalay gabdhaha waxaan waa afar talo oo markaas aad iyo aad muhiim u ah waa afar talo aad iyo aad muhiim u ah inay bartaan aad u fiican tahay afar talo oo markaas muhiim u ah oo waxa weeyaan kordhinaysa jaceylka ninkooda markaas afar talo haday afarta talo ay sameyso waxa kordhaya jaceylka ninkeeda oo uu qabo koow horta waxa weeyaan horta waa inay u muujisaa ninkeeda xushmad run ahaantii waxa ugu muhiimsan nin walba uu doonayo inuu ka fisho xaaskiisa waxa ay tahay in ay xaaskiisa macnaheedu u ahaato mid ixtiraamta haddaba isku day ninkaaga inaad ixtiraamto ku ixtiraamto wada hadalka ku ixtiraamto talooyinka waxa kaloo qadarinta kamid ah in aad quruxdaada iyo naftaada aad ilaaliso waayo nin walba wuxuu jecel yahay in naagtiisu ay ahaato mid aad u qurux badan oo markaasi udgoon badan caraf badan inay ahaato dhan walbo dhanka guriga haday noqoto dhankeeda noqoto ciyaalka haday noqoto mar walba u ahaado markuu indhihiisa ay qabtaan noqotaa mid mar walbo aad iyo aad u dejisa qalbigiisa talabaadna waxay tahay ku ammaan waxqabadkiisa runtii ku ammaan ninkaaga hawsha adeeg oo guriga uu haayo adiga oo mar walbo macnihii ka cabanaynin waxa uusan ku qabanin waxa uusan ku qabanin waayo markii aad ninkaaga ku ammaanto wanaaga uu qabto wuxuu isku dayayaa in uu macni joogteeyo ama uu laba jibaaro balse haddii uu mar walba aad ku muuqato waxa uusan ku qabanin taasi waxay sababi kartaa in uu macnaha iska dhaadhiciyo haddii aad wax qabato iyo haddii aadan wax qabaninba cid abaalkaaga haysaa ma jirto haddaba haddii aad doonayso in ninkaaga uu macnihii uu sameeyo waxa aad jeceshahay isku day inaad isticmaasho habka ugu wanaagsan oo ah inaad ku ammaanto waxa uu ku qabtay una mahad celiso waxa hubaal ah adigoo aanan waxsanin in uu ku sameyn doono waxa aad jeceshahay maxaa yeelay wuxuu ogyahay abaalka uu ku sameeyay abaalmarinteeda wanaagsan in uu kaa helo macnuhu in uu kaaga helayo lambarka saddexaad ama qodobka saddexaad aan maanta ku qaban doono waxay tahay si dood macnaheedu si xikmadaysan sida wada ognahay qasab maahan in dadku isku wada si yihiin isku si wax u wada arkaan ama isku si wax u wada helaan sida awgeed mararka qaar waxaa la arkaa labaanuhu in ay soo wajahdo waxyaabo ay ku kala aragti duwan yihiin waxaase muhiim ah in aan ogaano kala duwanaanshuhu waxa uu ka mid yahay quruxda sida qaansaroobadkuba u kala midaba duwan tahay misane ay u qurux badan tahay haddaba haddii ay dhacdo in ninkaaga uu wax kala aragti duwanaataan ugu horeyn macnihii waa inaad ogaataa raggu waxa ay ka aaminsan yihiin iyagu inay u hadlaan si xikmadaysan waa inaa aamintaa ama ogaataa raggu waxay ka aaminsan yihiin iyagu macnihii inay u hadlaan si xikmadaysan dumarkuna macni ay u hadlaan si xikmadaysan haddaba waxaa habboon in aadan dhaleeceelin aragtidiisa waayo mar walbo haddii dadka aan waxba haynin ayaa mar walba dhaleeceeya balse dad taa beddelkeeda isku day inaad si xikmadaysan aad usoo bandhigto aragtida
aragtida aad isleedahay way ka wanaagsan tahay aragtidiisa. isla markaana waa inaad sameysaa tusaaleyn barbardhig wanaagsan. waxaa kaloo muhiim ah in aad ka fojignaato wadahadalkiinu inuu dood isku bedelo. haddii aad dareento wadahadalkiinu inuu gaaray xaalad adag, isku day inaad si xeeladaysan aad usoo xirto dooda. qodobka ugu muhiimsan waxay tahay oo laga doonayo dumarkeena inay sameeyaan, dumarkeena Soomaaliyeed inay sameeyaan waxay tahay u qari waxa uu ku leedo. sida caadiga ah guurka ka hor qof walba waxa uu soo bandhigtaa inuu ku wanaagsan yahay, balse guurka kadib waxaa la arkaa in aad lamaanahaaga kala kulanto waxyaabo badan oo aadan filanaynin. waxaase suurtagal ah in lamaanahaagu uu ka hadal adkaado, dabeecad khallafsan, gacan adkaan, maxaa la jiray, iyo tan ugu xun oo ah in uu cibaadada Allah uu ka cajiso. haddaba waa maxay xalka? ugu horeyn lamaanuhu waa inay guurka u arkaan meel dhaqanka xun iyo dabeecadda khaldan lagu hagaajiyo, balse aysan ahayn meel wixii xumaadaba laisku dhaleeceeyo oo laisku ceebeeyo misena guurka loo burburiyo. maxaa yeelay bini aadamka cid aan khalad ka dhacaynin ma jirto, balse haddaad aragto lamaane isjecel oo isku qanacsan, micnaheedu ma ahan inaysan lahayn waxa ay ku liitaan, balse waxa ay go-aansadeen inay halka ay ku mashquuli lahaayeen waxa ay ku liitaan inay isku amaanaan midba mid kale wuxuu ku wanaagsan yahay. taasi ayaa keentay mid kale inuu ku qanaco. haddaba ninkaaga adiga dad ugu dhow, haddii aadan ku jeclaanin waxa uu yahay oo aadan u qarinin waxa uu ku liito, yaad filaysaa in uu u qariyo waxa uu ku liito? mideeda kale, aqbal inaad tahay maclimada guriga oo lagu sugaayo, ay sugayaan kan yar iyo kan weynba inay wada xanaaneyso, una naxariiso ninkaaga. haddii ay gafaan una naxariiso, macnaheed ninkaaga mar walba u naxariiso. haddii uu gafkaa dhaco, asaga gaf uu ka dhaco, haddii uu mar walba si walba problem uu haysto, hadduu xanuunsan yahay, mar walba noqo mid u naxariisata. mid ugu naxariista iyo dulqaadkaba waa labada shay aad ku kasban karto jaceylka ninkaaga. Thank you. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.